duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine ayaa maalintiisa saddexaad sii galaya iyadoo labada dhinac ay guulo kala sheeganayaan. Ciidamada Ruushka ayaa duqeymo aad u ballaaran ka geysanaya caasimadda dalkaasi Ukraine iyo gobolada kale. ciidamada Ruushka ayaa u muuqda kuwa saddex jiho ka soo weeraray dalkaasi Ukraine, kuwaas oo kala ah dhanka waqooyiga, dhanka bari iyo dhanka koonfureed. haddii aan ku bilowno dhanka waqooyiga, ciidamada Ruushka waxaa la rumaysan yahay inay ka gudbeen xadka dalkaasi Ukraine ee saddex geesoodka ah ee la wadaagaan dalalka Ruushka iyo Belarus ee lagu magacaabo Sankivka. sida la arkayay ciidamada Ruushka oo ku jira gawaarida gaashaaman isla markaana sita gantaalada ridada dhow iyo madaafiicda kale ayaa la arkayay iyagoo ku sii jeeda dhanka meesha lagu magacaabo Chernihiv ee dalkaasi Ukraine. sidaasi oo kale ciidanka Ruushka waxay ka soo galeen dhanka Belarus, gaar ahaan Chernobyl, iyagoo oo ku sii jihaysan dhanka caasimadda Kiev, waana jihada ay ka soo galeen oo ah dhanka waqooyiga. sidaasi oo kale ciidanka Ruushka laba jiho oo kaliya ma ka soo weerarayo dalkaasi Ukraine. sidaasi oo kale waxay ciidamadiisa ay doonayaan iyagoo dhanka Kiev inay soo qabsadaan doonaya, waxay ka soo galeen dhanka waqooyiga Trebortno oo Ruushka ah iyo xitaa magaalada Sami iyagoo doonaya dalkaasi Ukraine inay caasimadda aad ugu soo dhawaadaan. markaan eegno dhanka barina, waxaa ka socda dagaal aad u ballaaran gaar ahaan magaalada Kharkiv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi Ukraine. qaybo badan oo magaalada ka mid ah ay aad u duqeeyeen Ruushka. sidaasi oo kale wuxuu dagaalka ka socda agaarka Donetsk oo ah weerar iyo duqeyn ay ku hayeen ciidanka Ruushka iyagoo uu ka soo gudbay dhanka Belgrade ee dhanka galbeedka Ruushka. waxaa jira ilaa iyo 15,000 oo ciidanka gooni-goosadka Ruushka taageersan oo ku sugan Donetsk iyo Luhansk, kuwaas oo gacan weyn ka geysanaya horumarka Ruushka uu ka gaarayo dhanka dagaalka. markaan sharaxaad dheeri ah idinka siiyana, waxa ciidanka Ruushka waxay dhanka bariga ka soo galeen 6 jiho oo kala ah Sami, Belgrade iyo iyagoo ku sii jeeda Kharkiv iyo Luhansk, Donetsk iyo Melitopol. ciidanka Ruushka ee Belgrade ka soo gudbay ee Kharkiv ka dagaalamaya ujeedkoodu wuxuu yahay inay qabsadaan magaalada Kremchong oo caasimadda Kiev aan sidaasi ugu fogeen. caasimadda Kievna halkaasi ay doonayaan inay ka galaan. waana jihooyin badan ay caasimadda Kiev weerar ugu soo qaadayaan ciidanka Ruushka, inkastoo ciidamada Ukraine ay halkaasi ay dagaalo adag ay kula jiraan ciidanka Ruushka. dhanka koonfurta Ukraine markaan eegnana, ciidamada Ruushka ayaa ka soo tilaabay dhanka Crimea iyaga oo soo qaaday dhanka Jongar, iyagoo weliba aad ugu sii jihaysta agaarka Kherson. waxaana halkaasi ka socda dagaal aad u qarar. ciidamada dalkaasi Ukraine ayaa awoodda isugu geynaya dhanka Donetsk iyo Luhansk, inkastoo Ruushka culays xoogan uu ka soo saarayo Ukraine dhanka Belarus si uu caasimadda u qabsado kuna soo afjaro dagaalka socda hadda.